waxaa sii xumaanaysa xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabeelle. Degmada Jalalaqsi waxay ka mid tahay goobaha saameynta adag oo ku yeeshay fatahaadda uu sameeyay webiga, waxaana inta badan shacabkii ku dhaqanaa magaaladaasi ay guryahoodii kaga barakaceen fatahaadda, kuwaasi oo haatan nolol ka dhiganaya duleedka magaalada, waxayna ku nool yihiin guryo laga sameeyay cooshado. Guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ee dowladda Soomaaliya ayaa gaarsiiyay maalintii shalay 50,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah, taasoo ay dowladda ugu tala gashay in dadkaasi lagu gurmado, waana mid hordhaca sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya, kaasi oo wafdiga gaaray degmada Jalalaqsi hogaaminayay. dowladda iyadoo ma arkaysa iska jartay jeerankeedii oo dhuunta isqabatay ayaa waxay go'aan ku gaartay in wixii ay haysato qayb ayada la weyn sida hadda Sheekh Yuusuf wuxuu sheegay laakiin wax yar ah laakiin la weyn ayay ugu deeqday fatahaadahaas oo ay tiri dadkeena waa inaan ma arkaysa xusnaa xilliga murugada marka 1 milyan ayaa dawladda waxay tiri waa inaan siinaa fatahaadaha sida u kala daran yihiin meelihii ugu darnaa waxaa la siiyay wax roon oo marka la fiirina aan wax weyn si ahayn aan waxba ka tari karin laakiin idinkana qaybtaas ka mid ah ayaan horta aan maanta idin wadnay waxaan rabnaa inaad ugu doontaan taas ma aha ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in aan idin tusino inaan idin damqanayno aan idin turayno aan isla joogno aan idin naxayno oo dadkeena aad tihiin talabaadna waxaas ma arkaysaa in idinkana ayadana waa tusaale waxay u tahay wixii aan haysan haddaan wax yar idin ka siino haddii la yiraahdo ayadan inaan idin soo xusuusanay oo aan ku jirno inaan idin soo xusuusan doonana marka hadalka ma rabno inaan badino idinka waxaan rabnaa hadhowtii qof ama laba ama saddex inaad ma arkaysaa aad noo warantaan haddaan doono si gaar ahaan aan u fariisanaynaa meelahaas aan isku wareysanaynaa laakiin waxaan rabaa in aan horto fagaare idinku guddoonsiino wixii aan wadnay waxaan idin wadnaa $50,000 oo Jalalaqsi loogu talagalay tani waa hordhac haddii ilaa yiraahdo waxaan rajaynaynaa in dawladda aysan idin loobin doonin hadda kadib oo ma arkaysaa ay soo socoto waxaan rabaa marka in wasiirka Hirshabeelle iyo senatarada Hirshabeelle ka yimid ay iga gudoomaan ay guddoonsiyaan maamulka degmadana uu guddoonsiyo odayaasha dhaqanka waxaan rabnaa lacagtaas in waa amaano ay ku baxda meeshii loogu talagalay. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan duleedka degmada Jalalaqsi ayaa ka hadlay xaaladda nololeed ee halkaasi ku haysata iyagoo sheegaya inaysan haysan xilligan wax gargaar ah sidoo kalena ay dhibaato soo wajahday tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay ka barakaceen guryahoodii sabab la xiriira fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyay magaaladaasi. aniga waa Madiina Xootay Nuur waxaan ku noolahay degmada Durgoos Qoraxsin oo biina soo barkaciyeen waxaan taaganahay eesooyinka oo walaadayna maana waxaan kaloo ka soo baxsanay malaha alaabtii waa naga daadi dhar ma haasano nafaangnahay sinyeeri ma haasano waa gaajeysanahay waxaan walaalahayna ku codsanaynay inay noo daryeelaan oo waxaan siiyaan waxaan cunno waxaan cabno waxaan guntano inayna siiyaan aan codsana waa aniga waa Muuse Sabar Cabdi oo ku nool suulada Durgoos Qoraxsin oo biina gooyi oo banaanka joogno oo waxaan haasano oo lahayn haysanin guri haysanin oo dhibaatadaas baan inay sheegaa oo banaanka ilmahayna qanaaca iyo waxa ay nagu dilooso oo banaankii Durgoos Qoraxsin tuulada Durgoos Qoraxsin banaankiisii aan joogno aniga intaasaan oo dhibaato aan sheeganayo oo dhibaato aan naga soo gaaro naan waa ku dhibaataysanay waxaan haysana male marka hore inta ku noolay Durgoos Qoraxsin aan ku dhashay aan ku noolahay gurigaaga hoos ku jiray yaa ugu soo baxday biyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay ka walacsan yihiin xaaladda nololeed ee dadkan ayagoo sidoo kale sheegay in degmadaasi ay u tageen in ay indheeyaan xaaladda nololeed ee ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi waxayna hore sidoo kale u gaareen degmooyin ay ka mid tahay Buuloburte Beledweyne Jowhar qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isugu jira aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walacsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi waxayna tilmaameen in dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintooda mar waliba ay og tahay kalena hadli doonaan xaaladda ka jirta degmadaasi. ahaantii hadafkan u imaanay waa gudasho waajib dastuuri ah oo ah dadka aan matalaysa markay dhibaato la soo gudboonaato inaad u tagtid ka wardoontid arintan u imaaneen waxa ugu muhiimsan fatahaadahan ay sameeyeen wabiyada
waa dareemi karnaa dhibaatada idin haysato inaa go'doon ku jirtiin oo labadii bari oraxsin ay kala go'an tahay diyaaradda markaan soo saarnay wax badan waa aragnay idinkaan idinka dhageysan doonaa dhibaatadiina idinkaasi hoos u og wixii aan ka qaban karnana waa ka qaban doonaa wixii kalena dowladda federaalkan kula laaban doonaa run ahaantii imaanshaha Jalalaqsi markii iigu horeysa waaye aadaan ugu faraxsanahay waxa u socon ujeedadeena ugu weyn wax kale ma aha inaan idin la qaybsano aragno arrimaha fatahaadda waxaan kaloo rabnaa inaan aragno si kooban u dhageysano baahida iyo waxa inta ka jira adinka odayaasha oo dadkan dhaqo oo maamulka oo hogaamiyo inaan ayagana idinka dhageysano oo aan hadhow dawladda kula noqono markaan noqono inaan ka hadli karno reer Jalalaqsi waxa ugu daran oo qalbigooda taabanayo dawladda inay ogaato rabto maadaama wakiiladiina dawladda aan nahay inaan arintaas idinka maqalno waxbarasho xaggeeda caafimaad xaggeeda iidoon waqti badan la qaadanayno si kooban loo soo taaban doono insha Allah runtii waxa waaye haddaan kor ku soo marnay dhibaatada ma aragtay inkaan diyaaradda soo deganeynay aan aragnay inta biyo ay saameysay warbixino badan oo helayeen waxay sheegaysaa xataa dalka beeraha iyo guryo badan iyo dad badan inay ku dhinteen runtii dadka ku dhintay waa idiga tacsiyadeynayna ilaaha u naxariisto ilaahay jannada firdawsida ka waraabiyo wixii mahadnaq waxa la qabaa na been la qabaa oo ina saaka idinkoo Soomaan aan soo jirmaatay laga yaabo qaarkiin ina biyaha soo dhex marteen noo soo dardarteen walaalihiin oo jecel oo idin yimid oo soo dhaweynaysa ahaydeen waa idiga mahad celinayna runtii wixii dhaqaalaha loogu talagalay waxa sheegi doono wasiirka laakiin waxa jira agab loogu talagalay in loo qaybiyo maartay deegaankan Hirshabeelle loo qaybiyay oo loogu talagalay degmada Jalalaqsi 200 oo teende iyo 500 oo marakaneeca waa soo qaadi weyn hadda alaab yar aan wadna alaabtii hadhow faad maqamara sheegi doonto teendadaas iyo marakaneecadana waxa raadinaynaa kulay gudoomiyaha isla meel dhigi doona si lagu soo gaarsiin lahaa inta maadaama ay diyaarad soo qaadi karin oo alaab culus ay tahay sidii lagu keeni lahaa gaadiid ahaan ama baabuur ahaan tan kale ilaahay subxaan qaadirka ahaa maarta dhibkan haysto deegaankeena haysto ilaahay ha ka qaado runtii deegaankeena wuu kala xiran yahay Buulburti Jalalaqsi way kala xiran tahay Buulburti Balweyne way kala xiran tahay Mahada iyo Jalalaqsi way kala xiran tahay marka ina isku duceyno bir Ramadaan la joogaa meel banaanana waa taagana hadalku waa soo kooba ina isku duceyno iyo ina cadawga iska qaadno annaka isku tashano ina isku tashano ina dhulkeena nadiifino oo isku tashano ina deegaankeena iyo dhulkeena aan dhisano Dr. Dufle oo kamid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa intii goobtaasi lagu sugnaa waxa uu sameeyay dadka qaarkood baaritaano si uu u hubiyo xaaladooda caafimaad maadaama intooda badan ay sheeganayeen xaalad caafimaad darro Maxamed Nuur Amiin goobjoog Jalalaqsi